iga qaado waanadani muhiimka ah jacaylka dhammaada markii horeba ma uusan ahayn jacaylku hadduu dhab yahay waa inuu weligiis jiraa ma ahan inuu isku beddelo xasuuso oo keliya jacaylka dhabta ah oo nadiifka ah ma dhinto maqnaanshuhuna ma dilo waddo xanibi kartana ma jirto booskiisana shay kale ma beddeli karo weligiis midka wax jecel ma yaqaano khiyaanadu waxay tahay weligiis jacaylka dhabta ah duruuftu ma hor istaagi karto si kastoy ahaataba kalsooni ku qab in isha sida dhabta ah ugu baahan inay ku aragto qalbigeedana uu ku jecel yahay inaysan marnaba eegi doonin adiga khayrkaaga aad joogtid ama aad maqnaatide waxaadna ogaataa qalbiga sida dhabta ah kuugu xiriira inaysan marnaba macquulgal ahayn inuu qalbi kale la xiriiro adiga beddelkaaga midka kaaga taga waddada bartankeeda iyo midka ku khiyaanay markaad siisay jacaylkaaga noloshaada iyo kalsoonidaada kadib ma uusan ahayn qofkaasi mid ku jecel bilowgiiba qofka ku dhaawacay ee qalbigaaga jebiyey ma mudna inaad mar labaad fursad kala siiso weligiisa kalsoonidu waa sida koob ka samaysan dhalo oo kale haddii mar la jebiyana kuma soo noqonayo sidii hore uu ahaa weligiisa ha jebin qalbi ku jecel oo kuu baqa maxaa yeelay adigu ma ogid qalbigan aad jebisay inuu alla weyne subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay salaamu calaykum